السلام عليكم كني وكعودينتا iyo muuqaal u bedelida maqaal uu qoray Dr. Cabdulqani Xuseen Badar waxaana uu ku bilaabay sida tan shubhada koob iyo afartanaad xaq jirka waxa beera salafiinta ciwaankani waxa uu ka mid yahay ciwaanada kitaabka la yiraahdo Zukhruful Qawl ee ay qoreen labada doctor ee kala ah Fahad Al-Ajlan iyo Abdullah Al-Ujayri iftiimin ujeedka loo adeegsado weedhan xaq jirka waxa beera salafiyada waxa weeye in dadka la nacsiyo ku abtirsiga manhajka loo yaqaan salafiga ee maanta dunida muslimka saameynta togan ee weyn ku leh marka aynu salafiga leenahay waxa laga yaabaa in ay dadka qaarkood ku soo degdegto kooxaha la yiraahdo jaamiyada ama madkhaliyada ama deegaanadeena loo yaqaano salafiya jadiidiya oo iyagu baryahan dambe si gaar ah magaca isku koobay oo dadka kale iska xigsiya magacuuse qoladaas wuu ka guda ballaaran yahay ficiladoodana in badan oo ka mid ah looma nisbayn karo noocyada madaahibta muslimiinta ee dhanka caqiidada waxa markii hore loo qaybin jiray si guud saddex nooc kow madhabka ahlul xadiiska oo baryahan dambe salafiyadu ugu muuqaal weyn yihiin kooxaha ku abtirsada laba madhabka ashaacirada iyo saddex weeye madhabka maaturidiyada baryahan dambe ee ay hana qaadeen xadaaraadka baraaruga islaamku gaar ahaan wixii ka dambeeyay dhicitaankii khilaafadii islaamka ee Cusmaaniyada waxa dhanka madaahibta fikriga ah iyo kuwa caqiidada ah loo qaybiyaa saddex qaybood kow salafiyada madhab ahlul xadiis ayaa loo disbeeyaa laba ikhwaanka ma laha madhab go'an oo dhanka caqiidada ah ashaaciro way leeyihiin salafiyiin way leeyihiin suufiyana waa laga helayaa dalalka qaarkood saddex duruqa suufiyada oo inta badan ashaaciro ah dabcan waxa jira xarakooyin kale oo kuwaasna wax la wadaaga waxna kaga duwan aanse lahayn baaxadda iyo saamaynta ay kuwani leeyihiin kooxaha islaamna dirka ahi ha ahaadeen gaala muuqda ama kuwa islaamka si guud u sheegta haddana la dirire sida calmaaniyiinta iyo wixii la mida marka ay doonayaan in ay si dhuumasho ah islaamka u duraan magacyadaas ayay beegsadaan gaar ahaan sida ay u kala horeeyaan ayay duritaankooda u kala horreysiiyaan marka ay qolyahaasi magacan salafiyada sidaa aynu ku soo xusnay u adeegsanayaan uma jeedaan kooxaha jaamiyada la yiraahdo ee la curatay imaatinkii ciidamada Mareykanka ee dawladda Khaliijka sanadkii 1991 sheekhooduna uu ahaa Maxamed Amaan Al-Jaami oo asal ahaan xabashi ahaa ee waxa loola jeedaa baraaruga ballaaran ee ku abtirsada madhabka ahlul xadiiska xilliyadan dambana marka la maagayo lagu sunto wahaabiyada dacwadda salafiyadu waxa ay ku faaftay dhammaan caalamka islaamka iyo jaaliyadaha ku nool wadamada aan muslimka ahaynba xarakooyinka salafiyada ee dunida ku faafay ma jirin hoggaan maamul oo mideeya sida jamaacada ikhwaan al-muslimiinka oo kale laakiin waxa mideynayay kaliya manhaj guud oo ay wadaagaan iyo culimo marjac cilmi u ahaa hase yeeshee waddan kasta waxa uu lahaa maamul dacwo iyo nidaam u gaar ah oo ku hawlan dacwadda lagu kala tartiibiyo Soomaalida dhexdeeda jamaacatul ihtisaam bil kitaab wa sunnah waa jamaacada asal ahaan u matashay salafiyada geeska Afrika waana jamaacada ugu ballaaran xarakooyinka dacwadeed ee Soomaaliyeed dibad iyo gudaba marka la eego dhanka culimada dhanka hawlaha dacwadeed masaajidda iyo maraakista ay gacanta ku hayaanba marka la eego dhanka mu'assasaadka waxbarasho ee ay maamulaan hay'adaha khayriga ah madax dhaqameedka ganacsatada iyo wixii la mid ah ihtisaam maadaama oo ay saameynta ballaaran leeyihiin waa dabiici in ay cadow yeeshaan ha ahaado cadowgaasi mid shisheeye oo hawlaha diimeed ama bulsho ee ay dadkeeda u hayso ku culaadiya ama ha ahaado mid dana uu lahaa ay caqabad ku noqdeen ama ha ahaado mid hinaasa iyo xasad awgii u culaadiye sida awgeed in ceebo ama khaladaad ka dhacay jamaacada la buunbuuniyo ama ceebo aan jirin lagu nabnabaa waa wax dabiici ah
oo aan la yaab badan lahayn. Marka la eego xidhiirkooda kooxda Al-Shabaab ee xasuuqa badan u geystay bulshada Soomaaliyeed ee Muslimka ah, Ictisaamku waa kooxda keliya ee sida ugu adag uga hadashay khaldanaanta dariiqa ay shabaabku hayaan. Waa kooxda keliya ee ay shabaabku culimmadooda beegsadaan, waana kooxda keliya ee aan ka dhex shaqaynin deegaamada ay shabaabku ka taliyaan ama gacantoodu si sahlan u gaadhi karto. Dhammaan xarakaadka kale ee baraarugga islaamka ama saxwada ku abtirsada waa ay ka shaqeeyaan deegaamada shabaabka, culimmadoodana lama beegsado. haddaynu ku noqonno kitaabkii Zukhruf Al-Qawl, waxa ay labada qoraa odhanayaan xadgudubka diintu, tadarrufku waa dhashii salafiyada, waa midhihii salafiyada. weerahaas iyo kuwo kale oo la mid ah ayaa la adeegsadaa iyada oo ujeeddo keliya laga leeyahay oo ah in ay salafiyadu sabab u tahay xagjirnimada, isla markaana iyagu ay qaadayaan mas'uuliyadda dhibaatadeeda oo dhan. waayo dhammaan kooxaha xagjirka ahi waxa ay sheegtaan salafiyo, waxaanay daliishadaan usuusha iyo kutubta salafiyada, waxaanay wax ka soo qaataan culimmadooda. taasina waxa ay caddaynaysaa in ay mushkiladdu salafinimada tahay oo ay salafiyadu dhashay. sida kuu muuqato odhaahdani waxay cuskanaysaa in uu jiro xidhiidh ka dhexeeya xagjirnimada iyo salafinimada. taasina ay si cad uga muuqato qodobada kale ah in ay xagjirku salafiyada sheegtaan, kutubtooda iyo culimmadoodana daliishadaan. bal u kaadi haddaba, waxa aynu samaynaynaa isku beddel yar. bal meesha aad salafiya ku qortay ku beddel islaam, kadibna waxa aynu eegaynaa waxa inoo soo baxa. waxaynu odhanaynaa xagjirku waxa ay sheegtaan islaamka, waxaanay u daliishadaan tadarrufkooda iyo in ay ku saxan yihiin fahamkooda iyo falalkoodaba qur-aanka iyo sunnada nebiga iyo hadallada saxaabada. sidaa awgeed xagjirnimada waxa bacrimiya oo dhalaa islaamka. tani ma aha male awaal muran ku dhisan ee isku xidhka islaamka iyo irhaabka waxaa si weyn u adeegsadaa warbaahinta reer galbeedka iyo kuwa wax ka qaata iyaga oo qaarkoodna sidaa qaawan u sheegaya, qaar kalena si dadban u dhigaya in uu tadarrufku ku abtirsado islaamka, isla nusuustiisa iyo culimmadiisana cuskado. dhab ahaantii qofka ku doodaya in salafiyadu tahay hooyada tadarrufka iyo xagjirnimada, isaga oo xujadana ka dhiganaya in ay xagjirku usuusha salafiyada, kutubtooda iyo culimmadooda daliishadaan, waxa uu jilayaa isla kaalinta ay jilaan kuwa yidhaahda irhaabka waxa dhalay islaamka. waxaanu ku dhacayaa isla gefkii aqooneed, cadaalad darro iyo qasnaan xagga habraaca manhajiyeedka ahaa ee ay ku dhaceen kuwa irhaabka islaamka ugu abtirinayay ku ceebaynayay. sidaa awgeed haddii aad tijaabiso oo aad weydiiso kan xagjirnimada iyo salafiyada isku dabraya in uu u jawaabo kuwa islaamka iyo irhaabka isku xidhaya, waxa aad arki doontaa isaga oo fahankiisa hore ee carruurnimada ah bushinaya oo daliilkii uu buriyey halkan u daliishanaya. waxa uu odhanayaa daliishiga ay xagjirku islaamka daliishanayaan kama dhigna in uu islaamku xagjir yahay oo daliishigooda waafaqsan yahay, waayo sida ay u daliishanayaan ayaa khaldan. sida kuu muuqataba, bushintani waa mid ku dhisan habraac manhaji ah oo caqli ah, waxaanay caddaynaysaa sida ay gaf u tahay in la isku xidho xagjirnimada iyo islaamka, isku xidhkaasina uu yahay mid fahmi darro iyo jahli ku dhisan, mid xadgudub iyo gardarro ah. in ay gaf tahay in salafinimada iyo xadgudubka la isku tolaa. Zukhruf Al-Qawl bogga 337 ilaa 338. waxaa la yaab leh shakhsi diin u hiilinaya oo dacwad wada inuu haddana adeegsado isla agabkii ay adeegsanayeen kooxaha u bambaxay duminta islaamnimada ummadda. sidee ayaad cadowga diintaada isku af iyo isku adin u noqon kartaan? waxaan isleeyahay waa 4 arrimood mid un. 1. in ay qofkaas mooganaan weyni hayso oo uu baraarujin iyo caqli celin u baahan yahay. 2. in uu jahli ku jiro oo wax sheeg iyo wacyisiin u baahan yahay. 3. in uu nacayb xaqa ka daboolay oo jidkan madow ku riixaya jiro.
afar inuu dhab ahaan kuwaas la ujeedda yahay oo iyaga u adeegayo. haddii cudurdaar kale oo lagu badbaadin karo loo helayo hala ii sheego. tawfiiqda alle ha ina waafajiyo. halkaas ayuu ku dhammaaday muuqaal u beddelidda iyo ku codaynta maqaalkii uu qoray Dr. Cabdilqani Xuseen Badar. alle ha ka abaaliye isagana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inoo xifdiye. inta aynu ku kulmano muuqaal kale oo xiiso badan. assalaamu calaykum